waayahay mudanayaal imruweyn waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeennii la magac baxay martida mikrofoonka maanta waxaan idinkaga soo tawinaynaa magaalada Gothenburg oo ah caasimadda labaad ee dalka Sweden runtii waxaad aragtaan waa baraf xoog leh sidaad u jeedaan dhulka waxaan waa baraf xoog leh ilaa iyo hadda barafka ayaa da'aya oo nagu socda marka runtii Sweden oo ah magaalo aan hore u deganaan jiray Usmaan waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada degan reer Sweden waxa kale oo nala jooga oo barnaamijkan martida mikrofoonka marti inoogu ah Fuad bin Aqil waxa kale oo barnaamijka martida nagala qayb qaadanay Usmaan Ali Holland oo isagana barnaamijka martida dhamaantiin waxaan ilaahay horta ku soo dhawaada barnaamijkan martida mikrofoonka bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aniga qabaa maxad hadda la galay maxad laga gudbi karo oo fiican ay tahay Soomaaliya waa dad kay laba qayb oo Soomaali ah labadii qayb kamid ah way degan tahay way wanaagsan tahay markaan aan Soomaaliland qaybtii kale way qaybta mushkilada iyo problemka iyo dhibaatada u dhaxya waxayna taagan tahay maanta in ay dad isku soo ijaartaan isku keensadaan dad isku soo ijaartaan macnaheedu waxa ula jeedaa waxaan u jeedaa dawladdii oo ciidamo kale la socdo ajnabi ah ay ku duulayaan dadkoodii iyo dalkoodii taas baan uga jeedaa koonfurta Soomaaliya waxay u baahan tahay nabad waxay u baahan tahay dawlad ma aha in dawlad dadkii diidan yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay dawlad xalaal waayo dawlad markaa fiirid habkii lagu soo dhisay ma ahayn hab sax ah waxa soo dhisay warlordka hadda aad aragtay oo jooga ama Muqdisho jooga ama Puntland jooga ama meel kasta jooga warlordkii ay isku tagay waxay sameysteen maamulkana madaxweynaha sameysteen anigu koonfurdaan nahay ma diidanin xataa madaxweynaha Soomaaliya Abdullahi Yusuf Ahmed 15 sano Soomaaliya mushkilad meel ka jirto oo habeenii maalin la isku cunayo xamad bay ahayd sababta looga bixi karo Soomaaliya Muqdisho looga bixi karo mushkilada ku jirta sababta looga bixi lahaa isha laakiin waxa ay qirtaa in magaalada Muqdisho ay 9 bilood ay ka nabadgelyo fiicneed Washington taariikh oo marka ay qirto marka abnigii ka jiray magaalada Muqdisho oo systemka Washington ka fiicnaa ayay ku soo duureen xabashida iyo dawladda Soomaaliya waxay tiraa fadhiil maxalaal baa mise waa xaraan haddaan runta laga hadlin oo waxa jira oo Soomaalidu ku kala tagsan tahay aan runta la gaarin Soomaaliya weligeed ma heshiinayso Soomaaliya waxay ku heshiinaysaa waxa weeye in la iskugu soo noqdo wacdiga runta oo Soomaaliya yani iskugu imaan karto runtu maxay tahay marka runtu waxay tahay in qof walba dariiqa iyo xaq u leeyahay loo ogolaado runtu waxay tahay in asma kalaami aniga shalay adoo idilay oo ay shay oo idilay oo baabashibaan maanta ku afadhiya marka maanta waxa ay soo may shalay hadaan ku xiri maanta waxa ay soo tigre may Soomaalina raadinaya asma kalaami Soomaalina raadinaya tigreegana waxaad sheegaysidna waxa keenay sabab baa keentay runta aan isku sheegnay sabab baa keentay maanahu ma kuma diidani in maxkamadii Soomaaliya qabtay in nabadeeyay duruuftii shalay dhacday dhibaatadii shalay dhacday oo wadaadadu sabab u ahayd ya maanta Ethiopia keentay Ethiopia waa baxaysaa aan warka sida adiga aan u dhaxday aan u dhigo 92dii ayaa tiri oo ahaa saasad dhacday marka waxay noqonay marka xisaab daba joogto 92 تعيد سؤال ما ودينا إثيوبيان كوي من دولتنا وكان وحلا وحزن ومتى الصومالية المسلمية ومتى الصومالية المسلمية ما أنا وأنا كأنه سأقول له ما أنتم قدام بيسي نك أتوبيا وحير إذا ما ده لما هو أما صدق هو يبان كلام بحيا بحده وأقول لكن قرأوا هي لنتا كان قرأوا هي بحده وأمير كلام دولة باويرتي دولة دي بقى نمان كان أمر كقاعدنيان ماشي ودرام بيتجايان ماشي أو اللي يراك تشوفنا وكتشوفيا وح أمر كدولة ده وحنا نمان كان وطن والله سعدان برلمان كسيدي سبب ما حرمه وياه ما انتظر سيدا أركتان الرأي أنا مذكور
حرمية برلمان كالصومالية مدنا مركب ما حربة بمست إسكنا وطن كهو كجرو دولة كلا أحجر وطن كهو كفل سنة برلمان كحق مغولة قوان مركب حرمة هذا أمس سنة هي إنه هوستبو هوشاس اسمع برلمان الصومالية حربيين مقالة ودن في الصومالية تحت ذي جوان عدين بدي لها مانتي ودن النبي بيجوان وحكما وواحد جعلها حرية اللي هناك هذا اللي قالت حلقة لا يقع عنا إلى الدور الجديد قال مركز هذه حر وياه حر قوم دونا في سيرة سجن في الجيزة حربان والله كانوا سحرة من دول ده مركز السنين كوكس الدول ده كنا نربي كتير طبعا مدحوينها يروح لما يروح يحكي ميدان بوكلا يحكي ميدان بو يروح لما يروح يحكي ميدان صومالي لما رئيس الوزراء صومالي رئيس الوزراء وحكي من انتو كي ميدان ان dadka kale wadamada soo sameystaan waxay rabaan said dadka walaaliniga ma shaqeynaa waa soo gabagabeynaa isfahansi kadib aad ku siinaa waxa weeye nimankaad sheegaysid meeshaan waxaa la dhisay dowlad Soomaaliya haddana dowlad federaal la dhisay lama dhisinin dowlad jamhuuriya lama dhisin afar qaybood iyo barba waa lagu qayb Soomaaliya wax ku qaybsatay dowladda international ma aha dowladda waa dowlad federaal oo dib u heshiisiina waxaan qolo walbana waxay la timid qaybtii la xasan abshirka sheegaysa iyo gruubkiisu qayb بدلة كتبت بدلة إنه حسابهم واحد. إذا مرة قيبات كنسة. هذا الذين محاب دولة دولار بس دولة ويسجلين هذا الذين ونالتر كويس واحد. لكن قبيل والبابا وحلية وحلويش يا مجال أفرق. رسمة وكابتن مكان. وحنجعل لها وقت أيام نوسا. وحنربات برنامج كه. هل دقيقة مفروض بصيرة يعني. برنامج كه هو نوع حرية. هل دقيقة على برضو كوب بالله تلاهم حلقة وأركتها. هل دقيقة هستا لكن وحنكور برنامج. ما هي هل دقيقة هستا. هل كي دقيقة وحنكور برنامج تاعي. وحافي عن أنا آخر دكتور تركي سنة محمد سيد بردكو. تاريخ الإسكندر مع تلاهم وسجل. وقت يعرفنا كفاية. هلا بس معناها حكم في دقة الدولة محمد سيد بري حكم كان دقة واسمه. وحسبنا دكتور. وايه أوكي فؤاد. وحنقبع ضدكي حزبية كسوعة الوالد التجارية ضدكي بالتري فوقت الوالد التجارية الاتحاد الوالد التجارية نمن جوار ورك الوالد التجارية أهل السنة والجماعة. هل التجارية لا حلقة تاسع واركا بالكلام مولد كلا. أنا حلو أركا إن دولة الصومالية وما عند حمل شوكة لا شقيه وذا دلي هذا الجور يعني ماشي قبتنا حل لقار والله يرى مسحول العاش. واي هاي دمانتي هذا يوم عزمتين برنامج كيني مرتين ميكروفونك وأنا عاود كوسو تمني إنك دلك يسود المقالة جوسو بورا أي تاسمه دمانتي هذا يوم عزمتين هذا واي برنامج كيني تاسعي بقول يا وأنا وسعيد مع سعيد رمضان الله يساس إنه جري سوالي جبتها برنامج كان هي كان كل حاجة أو نيروبي هي دلال كلاته هي سوماليا مع كفي السبوتا ومقالة بوشوا عن 26 كيلو تمانين تمانتي ولا 7